baahidoo la reebo barwaaqiyoodan la gaadhoon bogsanay allele waan bogsanay allele waan bogsanay eleloy eliyaloyeloy bogsanayo waa badhaadhay dayaci wakaa soo bidhacne bishari waa bilqayre بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول الملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم dhalinyaro waxaa dhowr su-aalood ayaa layga soo weydiiyey barnaamijyadii hore iyo kuwii ugu dambeeyeyba oo casharadii hore iyo casharadii hore u tegey hore u baxeen iyo casharadii soo sukayey oo soo dhowaa oo nabiyullaahi daawuud calayhi salaam oo ka mid ahaa weydiimaha haddaba weydiinta ugu horeysa waxaa la ii weydiiyey waa weydiimaha aan had iyo goraal aan soo bandhiga waa weydiimaha aan qoraal ahaanka aanan ugu jawaabin oo aan ka gaari weeye marka si maaragtay dhalinyarada ay ku qanacdo weydiin waxay leedahay warcelin kolka warcelintii baan idin wadaa insha allah waa ardaygan wuxuu yidhi dhulka berigii hore uu isku wada dheganaa ayaa tidhi jugraafi ahaan berigaana dhulkan bunt iyo dhulkan saba wuxuu dhan waa isku wada furaayeen ma boqortooyooyin kalaa jireen oo aan ka ahayn boqortooyooyinkii bunt iyo boqortooyinkii saba iyo tii xadshabshuud oo kolkaa ka timid masaaridii ka timid oo odhan jirtay waxaan imid dhulkii awowayaashii ayaan imid odhan jirtay haddaba warcelintu waxay tahay waxaad ogaataa dhalinyaro dhulka uu isku dheganaa jiray nacam marinadan biyaha ma ayna jirin kol dambe ayay maaragtay samaysmeen boqortooyadii saba way jirtay oo balqiisa ka talinaysa ama sheba ka talin jirtay dhulkanna boqortooyo kale ayaa joogtay berigaa xabsadshuud imaaneysay oo xabsadshuud beriga imaaneysay waxaa la yidhaahdaa inay ahayd oo culimo badan oo baarista taariikhaha ku xeel dheer ay isku wada raaceen inay ahayd 1439 nabiyullaahi ciise calayhi salaam ka hor inay ahayd la isku raacsan yahay haddaba berigaas boqor baa joogay la odhan jiray baraxow raage boqorkii bunt ayuu ahaa berigaa boqortooyooyin kale ayaa jiray oo ayagana ahaa marka laga soo tago dhulkan bunt ilan bunt wuu is haystay ilaa maa wuxuu is haystay halka la yidhaahdo casab wuu is haystay waa bunt bay ahayd inkastoo berigii ka sii horeysay xabsashuud ka horteeda dhulka u ballaarnaa boqortooyada soomaalida ay leedahay u ballaarnaa ilaa iyo masaaridu waa tii lagu tegey taa waa taariikh dhan oo dambe oo aan idinkaga sheekeyn doono kol dambe haddii aan la yidhaah marka dhankan koonfurtana boqortooyooyin kale ayaa jiray oo ilaa iyo jubbooyinka ka talin jiray ilaa iyo maaragtay webiyada dhulkan webiyada shabeelayaasha ilaa dhulka loo yaqiina ee jubbada sare oo iminka loo garanaya baay iyo bakool iyo gedal loo yaqaana jubbooyinkii jubbada hoose iyo jubbada dhexe boqortooyin kale boqortooyada ka talin jirtay boqorkii berigaa xukumi jiray asna waxaa la odhan jiray boqor geedi
manhajka kuma jiro, layskuma sheego, walaa baraxuu raagaan laysku sheegin, walaa xabsashuud xataa iyadoo kooban unbaa la sheegaa inay timid bis ay tidhi dhulkii awowayaashin baan nimid, dhulkii asalkayga ayaan imid. boqortooyo kale oo kasii horeysay sidii ramses waa faraacinada waxaan sheegaya, boqortooyadan aan sheegaya. ninkii kale la odhan jiray imaam xutebna way yidhahdaan, xutena way yidhaahdaan. waa magacyada yaraaday ee sii dabago-ay ee ku yar soomaalida. soomaalida way la baxaan xute mathalan waxaan garanayaa koonfurta soomaaliya magaalada la yidhaahdo jowhar, laba xuutaan ka garanayaa, xuuti macaani iyo xuuti xaraari baa la yidhaahdaa. dadka reer koonfurta haddaa is wareysataan kulliiba waa maqli insha allah. geedii haddaba wuxuu xukumayey ilaa iyo jubbooyinka ayuu xukumi jiray, ilaa webiyadaasoo dhan xukumi jiray boqor geedi hadda waa xilligii faraacinada wuxuu u jiray. boqor geedi magacyo kale naaneystiisa marka la daba dhigo dadku aad bay u garanayaan, naaneystiisa kolka la daba dhigo aad bay u garan ogyihiin. boqor geediga aan sheegayo waxaa la yidhaahdaa boqor geedi baabow. boqortooyooyinkii haddaba soo jiray, walaa tii baraxuu raage, walaa tii geedi baabow, walaa kuwa kale fara badan, boqortooyo kasta markay ay ka weecato waddada cadaaladda ay ka weecato ee cadaalad daro ay samayso, ilaahay waxunbuu kusoo sallidi jiray, halkaas ba ayagana ay ku dhammaan jirtay boqortooyonimadoodii. oo markaas waxaa u bixi jiray waxyaalo fara badan oo magac xumo ah oo lagu bahdilaya magacoodii, sidii boqoraddii la odhan jiray dhegdheer oo kale. dhegdheer waxay ahayd boqorad soomaaliyeed ee gobollada waqooyi bari ilaa iyo gobollada dhexe ka talin jirtay. dhegedheer ma lahayn sida iminka sheekooyinka sheeko caruureedka looga dhigay. dhegdheer waxay ahayd boqorad leh ciidan intelligence oo ballaaran leh. magaalada iminka soo galaysaa markiiba waa lagu yeedhayaa ruuxa markaas amniga booliiska ama shurdada waxaas xukuma ayaa ku odhanaya magaalo hebelaa ka timid, magaalo hebelaa soo martay, magaalo hebel markaa maraysay waxaa tiri waxaan u socdaa magaalada boqoradda ayaan u socdaa. dhegdheer bay u bixiyeen. dhegdheer waxaa loogu bixiyey markii cadaalad darrada ay samaysay oo ummaddii ay ku tumatay yaa ilaahay la rogay iyadana. markaasaa waxaa laga dhigaba sheeko caruureed oo caruurta lagu bakdingeliyo inay dadka cunto, inay dhegadha dheer leedahay, maxay waxyaalahaasaa loo sameeyey. kaliya dhegdheer waxaa loogu bixiyey intelligencegeeda ayaa sareeyey. intelligencegeeda boliis fara badan oo boliis secret ayay qabtay. wadanna kolka maaragtay oo xukunkiisa uu adag yahay, waxaa adag boliis secretgiisa ayaa adag, intelligencegiisa ayaa dhisan. dowladna waxay ku dhisan tahay intelligence ayay ku dhisan tahay. dowlad kastoo adduunka ah intelligence ay ku dhisan tahay. ayadoo ku dhisan haddana haddii cadaalad darre ay samayso 100 intelligence kuu dhisnaato mar unbuu eeba kula rogi. sidaa weeye yani dowlado fara badan waad soo aragteen. taariikhda ayaaba sidaa ahayd marka laga soo bilaabo taariikhihii hore ee nabiyullaahi aadam calayhi salaam, nabiyullaahi nuux lagu soo xijiyo, oo nabiyullaahi nuux markii ummaddii ay caasiyeen oo barwaaqadii iyo nimcadii ku caasiyeen, waa tii ayagana lala rogay oo biyihii lagu soo fatahay oo dhulkay cirka biyo soo daayeen. marka caad, thamuud, yani qowm fircoon, faraacinada laftigooda heer waxay gaareen. mid baaba wuxuu gaaray heerkii ahaa inuu eebanimo, allanimo inuu sheegto, rabbinimo inuu sheegto. isna waa lala rogay. waa tii biyaha lagu hafiyey, hafin biyaha waa tii lagu xaqbiyey, lagu hafiyey. hafintaana waxay ahayd mid ballanqaad hore oo ilaahay oo u sameeyey ninka fircoonka ahaa. ballanqaadkaa wuxuu ahaa
jibriil baa wuxuu iska soo dhigay calayhi salaam, malagii jibriil ahaa ayaa wuxuu iska soo dhigay ninay saaxiib yihiin ee isgaranayan oo kale ayaa la iska soo dhigay oo la sheekaystay. wuxuu yidhi fircoonow xukunkaada cidda ka soo horjeysata sidee baad yeeli lahayd? wuxuu yidhi biyaan ku hafin lahaa buu yidhi. waaye adigoo hafinaya hadduu iska kaa baryo fircoonow iska sii daa hadduu ku yidhaah si oonaba ii baryin ciid baan afka uga shubi lahaa buu yidhi. kolkaa uu dhiman, haa uu dhiman. waaye markuu dhinta sideed odhan? bannaanka fagaarayaasha dadka iskugu yimaadaan baan soo dhigi, ninkii kibirka badnaa waa kaa arkaan leeyahay. waayaa la yidhi tii baa laga qoray. maalinkii la hafinayey, hafinta isagoo ku dhex jiro ayuu yidhi waxaan rumeeyey rabbigii muuse iyo haruun baa rumeeyey. maxay ilaahayow si uun marka ilaahay waa baari, waa raxiim, uu raxmad badan yahay, si uusan ilaahay naxariistii ugu soo degin. jibriil baa yimidoo ciiddii oo isaga marka hore yidhi unbaa afka looga shubay. markaa looga shubay halkiibuu ku baktiyey. markuu baktiyey kadibna meydkiisu waa kaa ilaa al'aanka yaalla. waa tii ilaahay hore u ballan qaaday alyawma nunajiika bibadnika litakuuna liman khalfaka aayatan. sadaqa allahu alcaliy alcadiim. qur-aanka sidaasoo noogu tilmaamay. qur-aanka wax walba noo sheegay, wax walba ayuu noo tilmaamay. haddaba boqortooyooyinkaa soo jiray ee ka soo jiray dhulweynaha, geyiweynaha ee soomaalidu leedahay sidaa bay ahaayeen. waa inagii soo sheegnay cafarta, oromada iyo soomaalidu inuu hal oday wada dhalay oo isku d n a ay yihiin, laakiin waa la kala furfuray. boqortooyadii ay ahaayeen ayay ku kibreen, way kibreenoo waxay ahayd boqortooyo aada u xoog badan bay ahaayeen. amxaaro ilaa waxay ugu tageen dhulkoodii tigre. amxaaro wixii o dhan way wada jibiyeen ayagoo isku duuban. hadda waxaan ka hadlaya waa berigii axmed gurey iyo ka sii hor. amxaaro axmed gurey xilligiisa haddana wayba ka dareen, naqaskii ku celiyeen. waxbaa qaldamay marka. wixii qaldamay unbaa la iska gooyey. orthodoxnimo la yidhaaha lagu soo salladay, waa la kala furfuray. oromadii, soomaalidii, cafartii waa la kala daadiyey. weydiintaa aan halkan kaga gudbo, weydiimo kale ayaa jira, aan eegno insha allah. nin baa su-aal wuxuu iga soo weydiiyey, waa wiil arday ah isna. anugu waa arday, waxa cid kastoo su-aal soo weydiisa waa ii arday. ardaynimada sharaf bay leedahay, macalinimadana sharaf buu leeyahay. man callamanii xarfan sirtu lahu cabdan. anugu imikadan wax in lay bara waa doonayaa, waxba ma aqaan. wuxuu yidhi magaalooyinkan jabuuti ku yaalla, cali sabeex iyo dikhil iyo tajura, magacyo kale ma leeyihiin oo lagu garanaya? ha, jawaabtii warcelintii iminkan ku siinaya haa way leeyihiinoo cali sabeex caasijoogna waa la yidhaahdaa, caskana waa la yidhaahdaa, dikhilna cokaar baa la yidhaahdaa. marka magaaladan tajura, magaaladii 7 masjid ayaa la yidhaahdaa, 7 masjid. gaalkii laakiin wuxuu bixiyey ville blanche, la ville blanche, magaaladii caddeyd ayuu u bixiyey. laakiin waa gobolka tajura ogow, waa gobollo hadda waxaan sheegay magacyadan magaalooyin baa tiri adigu ardayow. anigu waa gobollo ka mid ah waddanka jabuuti ka mid ah. ville blanche, gobolka tajura in la yidhaahdo ku habboon tahay. haddii tajura la oran waayena gobolka mabla ayuu ku wanaagsanaa, magaaladiisa tajura. anigu ra'yigayga kolleyba sidaasay igula wanaagsanayd in la yidhaahdo gobolka mabla, magaalo caasimeedkiisa tajura. sidaas lamida magaalooyinka iyo meelaha magacyada aan soo sheegnay waxaan ku biirin
magaalada la yidhaahdo carta carta hadda waxaa kaloo loo yaqiinay berigii hore iyadana ambadona waa loo yaqiinay cartada ugulna waa la yidhaahdaayo waa gobolka maaragtay eridaas oo dhan baaba buurtaabaa ugu magac dheer oo taariikho waaweyn bay leedahay hadda ka horna kaliibo fara badan ayaan kusoo sheegnay weydiinta halkaasaan kaga gudbayaa weydiinta xigta aan u gudubno magaalooyinkan aasan ee kaliibyadii hore aada ku sheegtay hantida la aasan hantidaa maxaa ka mid a magaalooyinkaasna maxay yihiin xaggeebay ku kala yaalaan waa bimacnaa maxay yihiin marka saasaan u fasirtay magaalooyinkan aasmay hantida waxaa ka weyn waxa yaalla hantida waxaa ka weyn cilmiga yaalla ayaa ka weyn ma og tahay cilmigii lagu dhaqmi jiray berigii hore nebiyullaahi ciise calayhi salaam ka hor ee lagu dhisay buurihii waaweynaa ee ahraamta lagu soo dhisay ee cilmiga xisaabaadkii cabirkii ee qoraxda ku salaysnaa loolalka qoraxda ay ka soo baxdo ilan gaalka juqraafiga inagu siin jiray ilaa iminkana ay ku bixiyaan manhajiistooda qoraxda inaysan dhaqaaqin oo dhulku yahay wax dhaqaaqaya ilaahay subxaanahu watacaalana wuxuuna yidhi washamsu tajrii limustaqarin marka tii e baan qaadanaynaa tii e baan raacaynaa annaga waxa weeyaan tii rabbiga subxaanahu watacaala ayaan qaadanaynaa haddaba limustaqarin meelo oo ilaahay ogyaha ugu talagalay ayay ku socotaa cilmigii berigaas haddaba oo awowayaasheenna ay lahaayeen wuu ku jira cilmiga loolalka qoraxda laga qiyaas qaato matalan ahraamtii gizi waa aniga ka soo sheekeynay waa aniga idin sheegay in cadceedda iftiinkeeda uu soo galo 2 goor sanadkii loo caleemo saaray boqortinimada fircoonnimada iyo sanadkii uu dhashay macnaa maalinkii uu dhashay iyo maalinkii loo caleemo saaray ayaa lagu fariisiiyey xisaabtii loolalka iyo dhismihii buurtan giza ee ahraamka ah ee faraacinada lahaayeen waa cilmi weli yaala aanan lumin reer galbeed way ku daaleen way waayeen magaalooyin fara badan oo aasmay ayaa jira magaalooyin fara badan ee aasmay ayaa jira magaalooyin taariikhdooda iminka sii lumaysa ayaa jirta ee loo baahan yahay in la nooleeyo hantidan aad doondoonaysaan oo hantidii balqisa ay ka mid tahay hantidii boqortooyooyinkii kale ay ka mid yihiin waxaa ka ballaadhan cilmigan ay ku daaleen reer galbeed ay waayeen ayaa ka ballaadhan aanan ka muhiimsan oo dunida wax u tari lahaa maanta agtaadu yaallaa adaa dul fadhiya waayo magaalooyinka aasmayuu ka mid yahay magaalooyinka sii aasmaya sida masjidkii weynaa ee masjidul khiblateynka la odhan jiray zaylac ku yaalla waa sii baaba-aya dhismihiisii taariikheed in la oodo in la xanaaneeyo dhismaha dib loo nooleeyo bay ahayd marka waxa weeyaan aqoontanadii waxay noqotay in waxyaalo kale lagu mashquulo waxyaalo kale la raadiyo ayay noqotay aqoontanadii waxay noqotay hanti un in la doono hanti waa loo baahan yahay hanti waad haysataa mid maguurto ayaad haysataa aana kaa tegin oo aan dhammaanayn waa marka ka soo tagno beeraha badda kalluumaysiga xoolaha markaan ka soo tagno ka nimaano macdan baad haysataa macdan shidaalka ka qaalisan baad haysataa macdanta adduunka ugu qaalisan baa kuu taal oo aanan dhammaanayn hanti yaroo boqortooyo meel ku aasatay waxba kuu tari maysa inkastoo ay ballaadhan tahay haddaba hantidii balqisa ay aada u ballaadhan tahay sida hadda yani dhowr cadaymood aan helnay ay aada u ballaadhan tahay hantideeda ilaa dhul badan ay taallo oo aan horena u sheegay kelibiye kale aan hore ugu sheekeeyey waxaan kugu sheegaya waxay tahay cilmigan
inaad la soo baxdid adigoo anthropologist ah, adigoo archaeologist ah, adigoo philologist ah, adigoo ethnologist ah, inaad la soo baxdid waddankanaga intaas u baahan. markaan leeyahay waddanka aan leeyahay anigu ka soo bilow NFD, ka soo bilow Soomaaliya, Kismaayo, Baay, Bakool, gobollada dhexe, labada Shabeelle, labada Jubba, waqooyi bari, waqooyi galbeed. waqooyi bari markaan leeyahay waa Puntland, waqooyi galbeed markaan leeyahay waa Somaliland, Djibouti, Soomaali galbeed, maxaa la yidhaahdaa dhulkan Oromiya la yidhaahdo, ilan waa wada Soomaali. kol haddaynu nahay isku DNA oo isku hal aabba laga wada yimid, waxaan kale colaadan iyo waxaan waa wax layna dhex dhigay, waa hurdnaa, weli hurdaan ku jirnaa. hurdadii gumaysiga nagu abuuray ee na hurdisiiyey ayaan ku jirnaa. ka toos hurdadan, aqoon la soo bax, aqoontii midayn lahayd oo walaalaha kula midayn lahayd. war wiilow, Oromow, walaalaha la midow, aqoon-yahano way kaa buuxaan. Cafaray, aqoon-yahano way kaa buuxaan. Soomaaliyay, aqoon-yahano way kaa buuxaan. isku taga aqoontii kaashada. aqoontu waa awood aan la liidi karin, aan la jibin karin. aqoontu waa muhiim. waxaan filayaa weydiimo kale haddayna jirin, insha allah hantidan meelahaas ku aasan waxaa ka ballaaran cilmigii faraacinada oo weli yaalla, meelo badan yaalla oo aan hore u tilmaamay. meelaha badan adaa lagaa doonayaa inaad timaadid. anugu waa hage ayaan ahaa, waa idin hage, diyaar baan idin ahay intaan noolahay insha allah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.